gudoomiyayaasha saddexda xusbi qaran ee cariga jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala ah gudoomiyaha xusbiga talada dalka gacanta ku haya ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, iyo sidoo kale gudoomiyaha xusbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo weelinayo gudoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland mudane Maxamed Faarax Xirsi oo socdaal dhowr maalmood ku joogay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa sheegay dhamaanba inay hawlahoodu ugu soo gabagaboobeen jawi ay ku dheehan tahay niyad sami iyo kalsooni dheeraada. Gudoomiyaashan asxaabta qaranka ayaa muddadan kooban ee ay joogaan dalka Kenya waxa ay si gooni-gooniya ula kulmayeen deeq-bixiyayaasha caalamiga ah Soomaaliland ka taageera dhinacyada doorashooyinka iyo waxyaabaha la halmaala iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi, iyo sidoo kale arrimo la xiriira qadiyadda iyo qarannimada go'aansitaanka Soomaaliland. Mudanayaashan asxaabta qaranka ayaa maray jiraa'id la qaateen saxaafadda ka howlgasha magaalada Nairobi ayaa waxay si kooban uga warbixiyeen muddadii ay halkaasi joogeen iyo ciddii ay kulamada la qaateen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaanu u nimid saddexda xisbi qaran oo ay la socoto akaademiyada nabadda ay noo samaysay facilitationka ama fududaynta howlaha iyo interviews. waxaanu halkan u nimid howlo la xidhiidha doorashooyinka qaran. waxaanu la kulannay qolada qaadhanada bixisa iyo hay-ado kale wixii uu ku shaqo lahaa arrimaha doorashooyinka. waxaan iska wareysanay halka ay marayaan xagga iyaga iyo xaggoodaba howlihii doorashooyinka iyo logistikadoodii resourcekii lagu fulin lahaa. xagga iyaga hawsha waa ka dhammaad. waxaa dhiman laba arrin oo baarlamaanku insha allahu markuu dhowaan soo noqdo, haddii kalena in kala horreysa hadduu sii yimaadana uu isagu ansixin doono, oo ah xubnihii loo doortay guddiga qaranka doorashooyinka iyo xeerkii. runtii waa wax qaadan kara maalin ay baarlamaanku fadhiistaan oo fudud. wixii kaloo dhan kasoo gudbin hawlihi waa inoo dhan yihiin. qoladan haddaanu iswaraysanay iyaguna inkastoona inoo sheegin detail faahfaahin, haddana waxay noo sheegeen xaggooda inuu barnaamijkii ka diyaar yahay, isla markaa aynu hawsha faahfaahinta iyo gudagalkeeda u dhigan doono marka ay baarlamaanku ansixiyaan labada qodob. bismillahi raxmaani raxiim. wasalaatu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin. dhammaan shacbiga reer Somaliland waxaan jeclahay inaan salaamo. sida gudoomiye Muuse uu sheegay, waxaanu halkan ku nimid saddex xisbo midaysan. mujtamaca caalamkana waxaanu sidnay fariin midaysan. waxaanu u nimid arrinta doorashada sida uu sheegay Muuse, arrimaha qabyada inagu ahaa oo ay ka mid tahay ansixinta guddiga doorashooyinka qaranka iyo xeerkuba. guddiga doorashooyinka qarankana waa la mudeeyey. sheegan labada jeermaan iga horeeyay. waxaanu socdaalkan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii noo suurtageliyey oo akademiyadu ay ugu horeyso. waxaanaanu tusinay bulshada caalamka inay ka go'an tahay shacbi iyo asxaabba dadka reer Soomaaliland inay doorashada qabsoontay. waa markii ugu horeysay gudoomiyaasha asxaabta qaranka Soomaaliland safar noocan oo kale ah ay isugu soo raacaan hawl ka mid ah howlaha qaranka Soomaaliland si wada jira. Cabdilaahi Cabdi Cali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Nairobi.